Shirka Golaha Amniga ee Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo bishiiba hal mar lagu qabto xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo waxaa shir gudoominayay Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamed Sayid Aadan waxaana shirkani ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland kuwa xoogga dalka iyo saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM. Shirkani oo qaatay saacado ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray amniga guud ee deegaanada Jubbaland. Qaar ka mid ah ciidamada saraakiisha oo laga dhageystay warbixino ku aadan howlgalladii ugu dambeysay ee laga sameeyay deegaanada ay gacanta ku hayaan argagixisada Al-Shabaab. Markii uu soo gabagaboobay shirka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Genaraal Cabdi Mahdi Cabdisalaan, la taliyaha ciidanka amniga madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa shirkanu sida caadiga ah markasta bil kasta bilowgeeda uu dhaco ayaa wuxuu ku qotamaa in si mugle looga warbixiyo bilihii la soo dhaafay waxyaabihii jiray oo dhacdooyinkii jiray bilahaas iyo in la qoondeeyo ama jadwal loo sameeyo bisha horle barnaamijka amniga oo ku saabsan xaaladaha ka jira deegaanada ku saabsan halkaa ayaa waxaa lagu dhageystay warbixintii bileedka oo ay soo jeediyeen hay-adaha amnigu taasoo salka ku haysa qiimeyn ballaaran iyo dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey oo xagga cadowga ka yimid iyo horumarka ay gaareen ciidamadeennu. waxaa la tilmaamay in laga maarmaan tahay sanadkan cusub 2021 tahay in si ka duwan sidii hore loo ambaqaado howlaha amniga. waxaa hoosta laga xariiqay inay laga maarmaan tahay in loo ruqaansado xagga deegaamada aan gacanta ku jirin hadda cadowga uu haysto sida jilib iyo eeriya bu'aale ama xagga badhaadhe buule xaaji jalaa cabdalle iyo meelaha lamidka ah. waxaa lagu garwaaqsaday inaan intaa ka badan aan la daawan karin in deegaamadu kala go'naadaan oo kooxaha jidgooyooyinka ku sameeya inta u dhaxaysa afmadow qooqaani taabte dhobley ama cabdilla biroole buule xaaji iyo meelaha lamidka oo kale oo saas oo kale ah oo deegaamada dhexdooda ku jira in si gaara ayagana maxay ahayd waajibaadkooda loo xalliyo. lagu soo urursamay shirku in la qabto guddi khaasa oo arrimahaas ka howlgala oo ay u maaragtay ay ka kooban yihiin Jubbaland, Somali National Army iyo AMISOMba iyagoo kulanka dambe soo bandhigi doona waxyaabaha muhiimka iyo tallaabooyinka la qaadi doona.